assalaamu calaykum kusoo dhowaada janalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso cajiib ah oo dhex martay wiil faqiira iyo gabar lacag leh. macalimad ayaa waxay kaxaysay gabdho ay macallin u ahayd si ay u soo sameeyaan cilmi baaris magaalada bannaankeeda. markii ay soo dhammaysteen howshoodii ayaa gabar ka mida gabdhihii aaday meel aad uga fog meesha ay joogaan, waxaana si lama filaana u soo dhaqaaqay gaarigii baska ah ay ardaydii saarnaayeen, waxaana halkaa looga soo tegay gabadhii. waxay isku dayday inay kasoo daba cararto gaarigii, balse nasiib wanaag cidi way maqli weysay. gabadhii markii ay quusatay ayay waxay go'aansatay inay iska soo lugayso. markii qoraxda dhacday ayay waxay dareentay cabsi. markii ay sii maqashay bahlaha qayladooda ayaa waxaa ku sii badatay cabsidii. ayada oo yaaban ayay waxay aragtay guri yar oo meel fog uga muuqda. aad ayay u faraxday, waxayna u soo dhaqaaqday halkii guriga ku yaalay. gurigan ayaa waxaa ku noola wiil dhallinyaro ah oo faqiir ah. gabadhii markii u timid ayay waxay u sheegtay qisadeedii iyo sida kadiska ee looga tegay halkan. wuxuu ku yidhi wiilkii, dhib ma lahan, iska seexo halkan cawada, subaxdii ayaan ku geenaya halka basaska laga raaco. wuxuu ku yidhi sariirta iska seexo, anigana bannaanka ayaan seexanayaa. gabadhan ayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ku marnaystay qurux, waxayna ka dhalatay reer hanti leh. wiilal badanna waxay ku haminay inay guursadaan gabadhan maadaama ay ahayd gabar akhlaaqdeedu wanaagsan tahay, gabdhaha asaageedana kaga duwan wax badan. cabsidii hiisay darteed gabadhii ma aysan hurdin habeenkii oo dhan, waxayna arkaysa mar kastoo ay indhaha kala qaado wiilkii oo qur-aan akhrisanayo, kadibna aadayo meesha shumac ka shidan yahay, gacantiisana kusoo gubayo. gabadhii ayaa waxay u malaysay in wiilkani uu yahay jinni. markii uu waaga baryay, wiilkii wuxuu soo waday gabadhii, wuxuuna keenay halka basaska laga raaco. gabadhii ayaa waxay ku soo laabatay guriga reerkeedii, waxayna u sheegtay aabaheed wixii safarka ay kala soo kulantay. aabihii ayaa wuxuu go'aansaday inuu tago meesha wiilkan uu ku nool yahay si uu u soo ogaado arrintiisa iyo waxa ku qasbay inuu gacantiisa gubo. wuxuu soo aaday gurigii wiilka, wuxuuna arkay farihiisa oo dhan oo guban, islamarkaana ay ku duuban tahay maro. aabihii ayaa weydiiyey oo ku yidhi, maxaa kaaga dhacay gacanta? wiilkii ayaa u jawaabay, wuxuuna ku yidhi, gabar ayaa shalay ii timid oo ka soo luntay waddada, waxayna jiifatay agteyda. markii aan jiifanay habeenkii ayaa waxaa dhacday markii aan hurdo inuu shaydaan ii imaanayo oo igu leeyahay, gabadhan xumaan ku sameey. qur-aan ayaan akhrisanayay markii uu ii yimaado si alle uu iga celiyo xumaantiisa, balse igama uusan tegin. wax badan ayuu igu soo noqnoqday. markastuu ii yimaado waxaan gubiyey farteyda si aan u xasuusto jahannamo iyo cadaabka alle. kadib waxaan ku laabanay hurdadeeda. mar kale ayuu ii imaanayay, anigna sidaa ayaan yeelayay ilaa farahaygii oo dhan aan ka gubo. aabihii ayaa wiilka wuxuu ka codsaday inuu gurigiisa u raaco. markii ay gurigii yimaadeen ayuu wuxuu u yeeray gabadhiisa. markaasuu wiilkii ku yidhi, ma taqaana gabadhan? wiilkii ayaa ku yidhi, haa, waa gabadhii shalay aan gurigii ku soo dhoweeyey. aabihii ayaa ku yidhi wiilkii, maanta laga bilaabo gabadhani waa xaaskaaga, aniga ayaa ku siiyey. arrintani ayaa waxayna xasuusinaysaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi, shay alle dartii ugama joogsatid ilaa haddii aad ka joogsato wuxuu alle kugu bedelaa wax ka khayr badan. wiilkii ayaa alle u sujuuday oo sujuud u dhacay, isagoona uga mahadinayo nicmadan uu alle siiyey, maxaa yeele wuxuu ugu bedelay xumaantii xalaal alle raalli uu ka yahay. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskraib dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.